بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu muhiim maahan waxaan ahay gabadh Soomaaliyeed oo aad ay u dhibtay marxaladda ka taagan maanta dalkeena Soomaaliya. waxaan baaq u dirayaa, waxaan la hadlayaa, waxaan runta u sheegayaa golaha shacbiyadda Soomaaliyeed. waxaan leeyahay mudanayaal, waxaa jirta nolosha aad ku jirtaan nolol ka degan oo aad ku heli kartaan maal iyo magac iyo mansab intaba. waa nolosha deganaanshaha leh, waa nolosha cadaaladda leh, waa nolosha isku xukunka kitaabka quraanka leh. haddaad ka ilduuftaan xaqa, haddaad ka ilduuftaan ilaahay subxaanahu wa tacaala dastuurka uu u soo dejiyay adduunkan, waxaad ku luguyi doontaan, waxaad isku fahmi waayi doontaan sharciga iyo dastuurka idinku aad dhigateen oo aadana ah. dhibaatada maanta dalkeena ka taagan ma aha midii ku habboonayd. maanta inaad isqabsataan maysan ahayn. maanta waxaad ku jirteen xaalad adag, waxaad dagaal kula jirteen Itoobiyaan iyo Carab, waxaad dagaal kula jirteen cadawga Soomaaliya. maanta inaad isqabsataan, maanta idinku inaad isku mashquushaan, maanta idinku inaad isla goysaan ma aysan ahayn. maanta haddaanu nahay dhalinyarada Soomaaliyeed, haddaanu nahay shacabka Soomaaliyeed, haddaanu nahay haweenka Soomaaliyeed, waxaad muddo 30 sano ah aad wadeen musalsal aan dhamaad lahayn, kaas oo mar walbaaba qof u ka noqonaya toore. ma noqon doonto. waxaanu sii qaadan doonaa xaaladda dalkayga taagan. waanu qaxnay, waanu orodnay, waanu rafaadnay. dalkaygii ayaa halis ku jira oo u sii dhow xilligii la dhaxli lahaa. maanta waxaad ku jirtaan marxaladdii ugu adkayd. maanta waxay ahayd inaad idinku isgarabsataan. maanta waxay ahayd inaad garbaha isqabsataan. war meeshan adeeraad ku dagaalamaysaan, war meeshan aad dabeecadihiina iyo xifaaltanka iyo xoogga aad ku wadaan, war meeshani waa masiir umadeed, war waa nolol umadeed, war waxaad ku matalaysaan dad masaakiina, war waxaad ku matalaysaan dal dayacan, war waxaad ku matalaysaan hooyooyin ku hoos jira buush hoostood, war waxaan aad dabeecadiina ku xukumaysaan waa rajo qaran. haddaanu nahay ummadda Soomaaliyeed, in badan ayaan idin daawanaynay, in badan ayaan idin dhageysanaynay. walaalayaaloo nama qabato tan. waxaan jecelnahay inaad naga bedeshaan oo aad noo doortaan nolol tan ka qurux badan. waxaanu nahay awlaad ku dhalatay burbur, waxaanu nahay awlaad ku barbaartay burbur, waxaanu nahay awlaad wax ku baratay burbur, waxaanu nahay awlaad qaxday, waxaanu nahay dad tahriibay oo badaha ku daatay, waxaanu nahay kuwa qurbaha lagu dhibaateeyay oo qurbaha ku nool oo dalkooda ka firdhaday. maanta markii ubax soo baxay, maanta markii rajo soo baxday, maanta markii ay soo muuqatay iftiinkii Soomaaliya, maanta markaynu helnay cadceed yar oo ina diiraysa, miyaynu maanta isqabsanaynaa? miyaynu maanta golihii aynu isku matalayna ku dagaalamaynaa? miyaynu ka oldufnay xaqa? miyaynu fahmi weynay nolosha dhabta ee jirta? war miyaynaan odhanaynin tani nama qabato? war haddaad tihiin dad xaqa oo cadaalad ku taagan, 30 sano ayaad dagaalamayseen, 30 sano ayaad dhiig daadinayseen, 30 sano ayaad qax nagu hayseen iyo dhibaato. war xagee ayay hawsha iska qabsan laadahay? war maanta waxaa loo baahnaa inaad cadowgiina garbaha isu qabsataan. war maanta Soomaaliya meel kasta ayaa laga soo weerarayaa. maanta ma aysan hayn maalin aad idinku isqabsataan. maanta ma aysan hayn maalin aad idinku xifaaltantaan. maanta ma aysan hayn maalin aad dabeecadihiina ku dagaalantaan. maanta ma aysan hayn maalin aad hoggaanka ku dagaalantaan. maanta waa maalintaad isdifaaci lahaydeen. maanta waa maalintaad baddiina difaaci lahaydeen. maanta waa maalinta aad rajada qarankiina badbaadin lahaydeen. maanta waa maalintaad badbaadin lahaydeen annaga. waa maalintaad rajadeeda dhowri lahaydeen. ma aha maalintaad qoryaha isku qaadan lahaydeen. ma aha maalintaad idinku isqabsan lahaydeen. ma aha maalintaad isdhibaatayn lahaydeen. maanta waa maalintii difaaca dalka. maanta waa maalintii qarannimada. maanta waa maalintii halganka. waxaan baaq u dirayaa, waxaan la hadlayaa, waxaan baryayaa dhammaan golaha baarlamaanka. waxaa jirta nolol aad ku helaysaan lacag, waxaa jirta nolol aad ku helaysaan amni, waxaa jirta nolol aad janno adduuniya janno aakhiraba ku helaysaan. nolosha aad ku jirtaan ma aha tan aad hadda ku jirtaan. dalkiina waxaa ku jira khayraad aad u tiro badan. haddaad la soo baxdaan oo sida ugu habbooneed u isticmaashaana inaad idinku lacag heshaan iska dhaafi caalamka ayaad quudin kartaan. nolol cadaalada ayaa jirta. haddaad cadaalad ku dhaqantaan cadaalad ayaad helaysaan. haddaad dadka aad matalaysaan
وهاجر بحضان أو أدلاشان نبت أبلي أياد هليسان دستورك حق أن نقولك دستورك وك إلهي سبحانه وتعالى وسودة شيء والله أولي هؤلاء سكان قبل ما يسوا أنت الدستور إذنك أتجمعين كوسا ميزتين عدد كيدرك حكم ميسان أنت إنك خلد ميا اسمه فهم ميسان سببتها سنوات سببتها الله سبحانه وتعالى أدونك وحوصو صاري دستور إلهي سبحانه وتعالى أدونك وحوصو صاري نلو يدقناشو نلوشا يدقناشها قومك بالمرة هوك يهلاقا يكسوقنا أدان أنه ما أنت أودو مليهن إنان إذنك إذن حكونا ما نتشو ماشو الصومالي لو حكونا ما تشوقنا بل سيدنك أتشوغا waxaad haysataan fursad ilaahay idin abuurtay ka baqa bil aadanka waa cadaalad sameeya 30 sano ayaan dhibaataysnayn maanta ayaan madaxa la soo kacnay maanta ayaanu baranay inaanu hadalno oo nidhaahno war waxa ma qaadan karno maanta ayay ahayd in Soomaaliya garbaha qabsato maanta ayay dal iyo dabad inaan iska taageerno maanta maysan ahayn inaan dabeecadaheena isku xukunno maanta maysan ahayn rabitaankeena inaan isku xukunno maanta waxay ahayd inaanu dastuurka Allah subhanahu wa ta'ala qabsano ciideena dalkeena iyo diinteena aan difaacno maanta waa maalintii xaqiiqada maanta waa maalintii jiritaanka ma aha maalintii isqabsiga ma aha maalintii lugooyada war cadawgeena ayaa kor inaga daawanaya cadow ayaan leenahay hadaad qorsheynaysid hebel inaad qadka ka saartid hadaad qorsheynaysid inaad lacag qaadatid hadaad qorsheynaysid inaad nolol yaro istiraxad ku noolaatid cadawgaagu wuxuu qorsheynayaa 100 sano sida kugu dhaxli lahaa hareerahaaga ayuu taagan yahay baddaada ayuu kor saaran yahay ciidaada ayuu ka buuxaa waxaa jira intaas oo kun oo halaq oo dhulkeena dhex jooga waxay ahayd maanta inaan difaacno aanu niraahno waxaan ma qaadan karno waxaanu nahay dad Soomaali ah oo aan aqbali karin dareenkaas isaga ah waxaan idin ka codsanayaa waxaan idin rajaynayaa nolol deganaansho ah Allah subhanahu wa ta'ala xaqaha idin waafajiyo Allah subhanahu wa ta'ala ha idin ku badbaadiyo masraxadan aad ku sugantihiin idin ku badbaadiyo Allah subhanahu wa ta'ala maanta waxaan ka rajaynaynaa Soomaaliya inuu u heeliyo oo ilaahay xaq u heeliyo maanta qof kasta oo Soomaali ah waxa looga baahan yahay inuu doorkiisa qaato maanta qof kasta oo Soomaali ama xil ha hayo ama uusan hayn waajibaadka dalkeena uu dayacan yahay dalkeena waajibaadkan inaan gudanayo maanta looga baahan yahay maanta markii wixii yaray noo soo baxay markii rajada yareeda soo baxday markii la yiri iftiin baa jira markii la yiri dayax baa soo iftiimay miyaynu noqonaynaa kuwa cagta saara miyaynu noqonaynaa kuwa ku noqda 20 sano ama 30 sano ay soo dhaafeen miyaynu noqon doonaa kuwa u xiisay inay dhigdaadiyaan miyaynu noqon doonaa inaynu noqono kuwa isku dambaaba miyaynu ku duufi doonaa wadada xaqda iyo horumarka war Allah subhanahu wa ta'ala xaqahayna waafajiyo ilaahu rabbiyo dalkayga badbaadi ilaahay ha idin badbaadiyo xaqan ha idin waafajiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.